بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabnaa su-aal inaan ka jawaabno caawa biidn illahi alkariim. waxaan rabnaa inaan ogaano kulli jinni ma shaytaanba? kulli jinni shaytaan miyaa? su-aashaas dad badanaa isweydiiyey, la-anna waxa waaye zamankani waxaad arkeysaa dadka muslimiinta in oo maaragtay jinniga xaqa yacni sidii la rabay aan ula dhaqmaynin. sidii la rabay loolama dhaqmo. waxaad arkeysaa qofka haddiiba jinni magaciis lasoo qaado wuu cabsanayaa. jinni magaciis haddii lasoo qaado acuudu billaahi min ashaytaan wuu cararayaa. marka jinnigu wuxuu noqday sida qof oo maaragtay dadka waxay dhahaan kuwan monster, wax laga cabsado oo laga carara ayuu noqday. مع أن زمن الصحابة waxaad arkeysaa in ay jinniga caadi ula dhaqmi jireen, yani xataa kaanuu yusracuunahu, yani way la dagaaltamayaan, way legdamayaan, jinniga la legdamayaan. jinniga waa imaana bani aadam oo iska soo dhigayaa. jinniga naftiis dadaa gacantiis muslim ku noqonaya, dad bani aadam ayuu dacwad siinayaa. jinniga dada uu toosinayaa, hurdaduu ka kicinayaa, salaaduu u toosinayaa. yani waxaad arkeysaa yani jinniga waxyaalo badan ayuu bani aadamku u qabanaa asuu aan ogeyn. marka waxaan rabnaa inaan horta ogaano maxaa waaye farqiga udhexeeyo jinniga iyo shaydaanka. farqiga udhexeeya waa maxay? waxa waaye ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني waxaa arkeysaa aayadan waxay sheegaysaa inuu shayaatiinta oo dhan asalkooda ay jin yihiin, laakiin markay jidka ilaahay subxaana watacaala ay ka dhaqaaqeen oo ilaahay ay ku kufriyeen, waxay noqdeen shayaatiin, cafriid iyo maradah ayay noqdeen sida bani aadamka oo kale. ilaahay subxaana watacaala qur-aanku wuxuu ku wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. alins waxa waa bani aadam. insiga marka maxaa ku jiro? yahuudiyaa ku jiro, nasraaniyaa ku jiro, majuusiyaa ku jiro, wax walibaad ku ark, munaafiqaa ku jiro, faasiqaa ku jiro, wax waliba ayaad ku arkeysaa. jinnigana waa saas, caalamal-jinni waa saas. waxaad arkeysaa jinni oo hadda ibn xasm xataa wuxuu leeyahay jinni waxaa jiro oo saxaabi ah oo zamankan nool. marka waa dad oo anaga xataa naga fiican, iimaan ahaan nooga fiican, oo ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam arkeen ayaa nool. marka waxa waaye jinni waliba maaragta inaan cayna ma aha, jinni waliba inaan maaragta wax xun inaan ka sheegna ma aha. marka ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska oo sheegayo, yani markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku akhriyay suurat araxmaan ayuu maaragtay saxaabadu ayuu ku aqriyay radia allahu canhum. way aamuseen, saxaabadu way aamuseen. markaasuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam, jinniga walaalihiina jinniga ayaa idinka fiican. markaan akrinaya waxay yidhahdeen laa bishayin min aalaa'i rabbina nukadib falaka alxamd fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. markuu nabiga maraayo saasay dhahaayeen, laa bishayin min aalaa'i rabbina nukadib falaka alxamd. maca ina asaxaaba markay aayadan ay maqlaayeen, mise suuradan ay maqlaayeen, way aamusnaayeen. marka waxaa arkeysaa yani jinniga inuu bani aadamka ka fadli badan yahay. marka ilaahay subxaana watacaala aayad kale wuxuu ku leeyay waisrafnaa ilayka nafran min aljin yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin. waxaad arkeysaa isku markay aayaddii iyo maaragta dikri ilaahay subxaana watacaala ay maqleen, ay qushuuceen, isku markii dacwo ayay galeen. xataa haddaad akhrisid siiradda nabiga calayhi salaatu wasalaam, hal jeer ayaa muslim islaan soo galay, hal jeer. maca ina asaxaaba markaas waqtigaas waqtilhijra qabla alhijra ahayd 70 acmalay ahaayeen. marka walaalayaal waxa waaye jinniga in maaragtay oo la ixtiraamo waay, oon mar waliba wax in laga sheega ma aha, in laga cuudubillaysta ma aha. jinniye muslimiin ayaa jiro. yani culammadu waxay leeyihiin yani qofka xataa maaragtay oo ahlil khayrka ah
way ku dhagan yihiin kama dhaqaaqaan agtiis sida ibn baas raxmatullahi caleyh markuu duruusta u bixin jiray jinni ayaa kasoo qaybgalayeen jinni ayaa kasoo qaybgalaya oo duruustiis maqlaayeen oo wax ka faa'iidaysanayeen marka waxa waaye yacni waxaa ku jiro dad oo awliyaa allah ah dad saalixiina ku jiro marka waxa waaye in oo maaragtay oo dadka maaragtay indhaha kala furaana la rabaa oo aysan jinniga mar walba caynin oo jinniga mar walba wax ay ka sheegin waxa waaye yacni waxaad arkaysaa waxaa ku jiro injineera ku jiro waxaa ku jiro jinni oo waxaa jiro oo doctor ah waxaad arkaysaa qofka habeenkaas oo iska jiifo ayaa intii operation ay ku sameeyaan sixir ka bixinayaan ay maaragtay oo subaxdii markuu soo kaco caafimaad helaya waxaad arkaysaa qofka muslimka maaragtay qur-aanka la saara inay soo garab istaagayaan ay dagaal qaadayaan oo muslimkan maaragtay siday ku badbaadiyaan oo sidoo caafimaad oo ku heli lahaa marka waxyaalo badan ayay bani aadamka u qabsadaan laakiin waxa waaye axsaankii dadku waxay u qabanayaan oo dhan waa la inkiraya walciyaadu billah marka insha allah waa inaa indhaha la kala furaa oo maaragtay dadkan walaalihiina waay ahli lqibla waay ayaga anagoo kale ah marka insha allah ilaahay subxaana watacaala maaragtay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala walaalaheena noo xafido oo dadka maaragtay muslimiinta garab qabanayo oo maaragtay culammadu waxay ku leeyihiin nin waliba oo raaqi ah nin waliba oo macaalij ah waxaa daba socod intaasoo jin ayaa daba socota oo asagaan ogeyn way garab qabanayaan maaragtay haddii dagaal lagu soo qaado jinniya lanna bacd alaxyaan marka adiga qur-aana akhrinaysa intaasoo jinni oo shayaatiin ayaa kasoo qayb qaadanayaan oo waxaad arkaysaa kani maaragtay oo jirka ku jira ay garab qabanayaan marka waxaad arkaysaa kuwa muslimiinta maaragtay inay garab qabanayaan qofkaasi laakiin waxaan waa wax oo maaragtay oo qofka inuu dhag u dhiga ma aha qofka keliya waxaa laga rabaa inuu qur-aanka oo qofka u saaro oo ilaahay subxaana watacaala u baryo ilaahay inuu subxaana watacaala u baryo siduu qofkan uu ka caafimaadi lahaa ma aha inuu ka fikiro meeqa jinni ay daba socda iyo meeqa jinni ay garab qabana wax ku garab qabana waa ilaahay subxaana watacaala keliya anta istacin billah subxaana watacaala ilaahay tala saaro ilaahay subxaana watacaala ayaa ku garab qabana maadaama anta tarfac الظلم عن المسلمين كان الله معك انتي adiga maaragtay muslimiinta dulmiga lagu hayo aad ka qaadaysid oo garab qabanaysid waxaad ogaataa ilaahay subxaana watacaala min cibaadihi alsaalixiin jinni ha noqda malaa'ika ha noqdaan ilaahay subxaana watacaala ayuu garabkaaga soo dhigaya garabkaaga istaagayaan oo ay ku garab qabanayaan marka waxa waaye walaalyaalahen waxaan ka codsanaynaa in markii jinniga laga hadlaayo inay maaragtay si ixtiraam uga hadlaan jinni waliba shaydaan ma aha shaydaanka iyo jinniga farq ayaa u dhexeeya shaydaanka waa kan oo ilaahay subxaana watacaala ku kufriyey oo waa kan ilaahay subxaana watacaala kasoo horjeedo oo ilaahay subxaana watacaala uu dhahay oo ilaahay subxaana watacaala oo lacneeyey lacnad oo saaray malcuun inuu yahay ilaahay subxaana watacaala qur'aan uu ku sheegay wa inna calayka lacnat allah فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كنا عليه مركا كاسي ما أهمتك أنك هادلين وكوا كلا أو ماركت ولا لهنا حتى النبي عليه الصلاة والسلام حوي يقفك مركو لف أركو أو جدك أوكو أركو لف حيوان مركو جدك أوكو أركو لا ما أركنو إنه استعمال ما إنه حاجة إسكي ماركتي استنجاء أو كدكتو أو عوردس أو كنظيفية معها هذا محوير استعمالنا wuxuu yiri laftaani ilaahay subxaanahu wa ta'ala hilib ay walaalihiin u saaraya oo jinniga ah marka waxa waaye in oo maaragtay in la iska ilaaliyo waa markii jinniga laga hadlayo walaaliyaal oo maaragtay ixtiraam loo muujiyo oo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala maaragtay walaalihiin yawm alqiyaama meel oo maaragtay jannat alfirdaws nagu kulmiyo aan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryayna marka hadalkayga saasan kusoo hadalka gaaban saasan kusoo joojiyay insha Allah halaasaan ku dhameeyay subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh